السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي waa دكتور محمد عثمان عمر جالة waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay cudurrada ku dhaca uur ku jirta. waxaan kaloo ahay dhakhtar cilmi baare ah. waxaan ka howlgalaa isbitaalka tababarada iyo cilmi baarista ee Rajab Tayyip Erdogan. maanta waxaan rabaa inaan halkan idinkula wadaago cilmi baaris aan aniga iyo Dr. Cabdikariin Xuseen Maxamed ka sameynay cudurrada ku dhaca kilyaha, khaasatan marxaladda ugu dambeysa ee cudurrada ku dhaca kilyaha ee loo yaqaano end stage renal disease. cilmi baaristan waxaan soo wadnay muddo 6 bilood ah. waxaan ugu dambeyn bishii la soo dhaafay ee July ilaahay mahadiisa noo suurta gashay inaan ku daabacno journal caalami ah ee loo yaqaano International Journal of General Medicine. cilmi baaristan waxaan ku sameynay bukaano cadadkooda gaaraya 208 bukaan kuwaasoo la tacaalaya marxaladda ugu dambeysa ee ku dhaca cudurrada ku dhaca kilyaha, isla markaana dhaqis loogu sameeyo ama kili dhaqis loogu sameeyo isbitaalka tababarada iyo cilmi baarista ee Rajab Tayyip Erdogan. cilmi baaristan waxaan ku ogaanay in 61.5% bukaanada sida joogtada ah loogu sameeyo dhaqista kilyaha ay ahaayeen rag, halka 38.5% ay ka ahaayeen dumar. waxaan kaloo cilmi baaristeena aan ku ogaanay bukaanada da'dooda ay ka badan tahay 65 sano inay ahaayeen bukaanada ugu badan ee loo sameeyo dhaqista kilyaha. markaan fiirinay qarashaad ku baxo dhaqista kilyaha, waxaan ogaanay 57.7% bukaanada sida joogtada u gala dhaqista kilyaha in qarashaadka ku baxa dhaqista kilyaha ay tahay mid jeebkooda ama ehelkooda ay ka bixiyaan, halka 43.3% bukaanada dhaqista kilyaha sida joogtada u gala ay helaan caawimaad ka imaata hay'ado samafaleed iyo dad muxsiniin ah. muddadii 6 bil ahayd ee aan wadnay cilmi baaristan, waxaan ogaanay 65% bukaanada sida joogtada ah loogu sameeyo dhaqista kilyaha in ugu yaraan hal mar ay imaadeen emergency-ga ayagoo xaalad adag soo galay. kadib markaan baarnay sababta xaaladda adag keentay, waxaan ogaanay bukaanada in ay imaan waayeen dhaqista kilyaha 40% inay dhaqista kilyaha ay imaan waayeen. waxaan sii baarnay sababta keenaysa in bukaanadan 40%-ga ah sababta ay dhaqista kilyaha u imaan waayeen. waxaan ogaanay labada arin ee ugu badan inay tahay midda koowaad, bukaankii in uu iska bixin waayo qarashkii loogu talagalay in dhaqista kilyaha loogu sameeyo. tan labaadna ay tahay in bukaankii uu heli waayo boos uu ku galo dhaqista kilyaha. cilmi baaristan waxaan ku ogaanay in cudurka sakarowga ama macaanka uu ahaa cudurka ugu badan ee sababa in kilyaha ay shaqadooda gabaan, bukaanadana ay u baahdaan in loo sameeyo dhaqista kilyaha. waxaa ku soo xigay cudurka dhiigkarka, waxaana soo saddexeeyay dhagxaan ku sameysma kilyaha. waxaan kula talinaynaa dadka la tacaalaya cudurrada sokorta iyo dhiigkarka in mar walbaba caafimaadkooda ay si joogto ula socdaan, dhiigooda iyo sokortoodana mar walba si joogto ay u cabiraan, dawooyinka dhakhtarka uu soo qorayna si joogto ay u isticmaalaan, kilyaha caafimaadka kilyahoodana ay si joogto ula socdaan mar walbaba. waxaan kaloo bulshada kula talinaynaa in cunto dheelitiran ay cunaan, cabitaanka biyahana ay badsadaan, in ugu yaraan maalinkii 3 litir iyo bar in biyo qofka uu cabo. waxaan kaloo kula talinaynaa in jimicsi badan la sameeyo. waxyaabaha aan soo sheegnay waxaa looga baaqsan karaa in qofka kilyihiisa ay fadhiistaan ama ay shaqadooda gabaan. waxaa kaloo looga baaqsan karaa inuu qofka u baahdo dhaqis kilyaha loo sameeyo. maadaama aan ogaanay in bukaano badan ay dhaqista kilyaha u baahan yihiin, waxay cilmi baaristeena soo jeedinaysaa qodobka koowaad oo ah in dhakhaatiirta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay bukaanadooda kala taliyaan in ay la socdaan mar walba caafimaadkooda, khaasatan ay la socdaan kilyahooda. waxaan kaloo soo jeedinaynaa maadaama bukaano badan ay dhaqis kilya u baahan yihiin, goobaha dhaqista kilyaha lagu sameynayana ay aad u tiro kooban yihiin, in goobo badan oo kili dhaqis lagu sameeyo laga furo magaalada Muqdisho iyo guud ahaan waddanka Soomaaliya, taas oo meesha ka saari doonto in bukaan kili dhaqis uu ugu heli waayo boos u waayo. waxaan kaloo soo jeedinaynaa hay'adaha samafalada iyo dadka muxsiniinta aan u soo jeedinaynaa in maadaama dadka dhaqista kilyaha u baahan ay tahay
process ama wax waqti dheer soconayo lagana yaabo qofka inuu weligiis loo sameeyo dhaqis kelyaha in laga caawiyo qarashaadka ku baxaya dhaqista kelyaha.